caasimadda Nairobi guri qiimihiisu uu yahay 70 milyan lacag Kenya dollar ahaan inta ay u dhigmato 129 ku dhufo. Gurigani waxa uu ku fadhiyaa cabir ahaan 4,000 oo square feet ah. Sidoo kale waxa uu leeyahay qolka shaqaalaha, waxa uuna leeyahay jawi iyo xaafad uu ku yaalo markaasi aan loo barbar dhigi karin xaafadaha kale. Waa Lavington, meel macaan ayuu ku yaalaa, wadana uu haystaa. Gurigani waxa uu ahaa mid ilaa iyo intaasoo unit ah, balse halkani ayaa ka soo haray. Maantana insha Allah waxaan doonaynaa inaan isla eegno oo aan isla qiimeyno dhammaanteen gurigani. Markaad soo gasho albaabka ugu horeeya waa kani. Albaabkani waa alwaax aad u adag, mahogany sida ii muuqato hadduu ka dubnayn inaba caadi maaha, aad u weyn. So marka waxa uu leeyahay doorbellkii, waxa uu leeyahay systemka wicitaanka oo qofka markaasi kamaradii iyo meeshii aad ka wicinayso qofka. So halkani ayaad iskala hadlaysaan adigoo qolka ku jira, qofka markaasi martida ah inta ayaad ka daawanaysaa, kamarada ayaana kuu qabanaysaa. Ma jirto sheekadii ahayd albaabka peephole-ki lahaa iyo waxaasi ma jiro. Halkaas ayaa qofka ka arkaysaa, wuxuuna leeyahay alam kii albaabka banaanka ahaa. So markaad sidaas u soo gasho dhinacani midigta waxaa kaa qabanaya armaajo oo extra storage loogu talagalay inaad halkani aad ku kaydsato waxyaabaha markaasi dheeriga ah adigana aad u baahan tahay in aad meel ku kaydsato. So armaajadani waa ujeedaa inaba caadi maaha, aad ay u weyn tahay, waa very spacious. Armaajada qolasha maaha, armaajadani waa iska extra, waxaa loogu talagalay keliya in meeshaasi aad iskaga kaydsato waxyaabaha qaarka ah. So marka dhinaca midigta waxaa kaa qabanaya musqushani oo aan inaba caadi ahayn, loogu talagalay martida. Musqulaha waad garanaysaan, maalmahan dambe waxaa loogu talagalay qofka markuu sidaas guriga u imaado inuu ku weydin musqulinta way inay musqushinta way loogu talagalay qofka markuu soo galo inuu arko musqusha dhowto dambe guriga haddii uu joogo markaas martina uu yahay soo ku weydinin waad aragtay Soomaha. Waa main dogi on your right, musqushi iyo armaajadaasi extra ga ah. Halkani waa staircase-ki laga koraayay qolasha kale, balse ka hor howlkani weyn ayaad haysataa. Inaba caadi maaha. Howlkani waxa waaye lounge room-ki mise fadhigi sidaad u taqaano. Fadhiga aad iyo aad ayuu u weyn yahay. Xusuusnaa gurigani waxa uu ku fadhiyaa ayaan ku dhahay 4,000 oo square feet ah. Marka waxaan oo dhan waa fadhiga. Soo ma aragtid? Ilaa halkan waa fadhiga aad u weyn yahay. Waxaa lagu sameeyay gypsum-kan quruxda badan. Waxaa la geliyay nalalkii downlights-ka ahaa. Waxa uu sidoo kale gurigani uu leeyahay finishing-ka iyo fitting markaas lagu sameeyay chandelier-ka sidaas ay ugu imaanaysaa. Waxaa looga faa'iidaystay gurigani in loo sameeyo iftiin natural ah. Iftiinka cadceedda iyo leyrta ayaa la rabaa mar walba inaad ka qaadato albaabada sliding-ka ah ee markaasi muraayada ah iyo daaqadaha sliding-ka ah ee muraayada ah. Fadhiga waxa uu leeyahay open plan system. Waxa ku furan jikada oo markaasi iyadana halkani diyaar kuugu ah. Jikada waa fully fitted, waxay leedahay wax walbo, wax ka maqan ma laha. Top-kani waxaa loogu talagalay in markaasi qofka uu ku shaqaysto mise haddii ay noqoto in dining ahaan uu isticmaasho mise marka baa ahaan yani meeshii kuraasta la dhiganayo la fariisanayo qofka jikada ku jira si uu markaas cidlo u dareemin, kalinimana uu u dareemin. Halkani waxaa kugu diyaarsan appliance oo dhami midii kuleysadii ahayd iyo midii lagu talagalay baking-ka ayaa halkani kugu diyaarsan. So waxaad u jeedaa in halkani ay ku leedahay extra storage, korkeedana ay ku leedahay extra storage, midda korna extra storage kale. Halkanna waxaa loogu talagalay inaad ku kaydsato alaabahaaga adigoo markaasi ka faa'iideysanaya fursad walba guriga ka soo bixi karta in storage ahaan loo isticmaalo loona adeegsado. So meeshan socket-ka ayaa kugu diyaarsan midii kuleysadii ahayd in aan dhahay jikadii halkaas ay galaysaa. Weli agabka ayaa meelaha dhooban ee daadsan. Meeshan waa sinkigii. Halkanna waxaa loogu sameeyay in qofka markaasi uu lahaado mise uu yeesho jika seamless ah oo markaasi lagu dhex qariyay top-ki. Halkani ayayna kugu diyaarsan tahay jikadani
ma aha kuwii muuqda ee markaasi digsiga saas loo saarayay balse tani waa flat waa glass seamless ayaad saaranaysaa digsigaaga halkani wuuna ku karaya marka digsiga aad ka dejiso aad damiso isla markaa waa qawow ee ma kulula waa fahanteen somaha so waa seamless waa muraayad halkani ayaad ku samaysanaysaa kuna karsanaysaa waxaana soo saartay shirkadda Beko xaysiin managa aha laakiin waa technology cusub oo inaba caadi ahayn aad iyo aad looga taxadiray looga shaqeeyay looga fikiray waxaan arkayay meelo qaar in midani hadda kisto waxaad moodaa in seamless-keeda uu zaid ahayn kuwa qaar waxaa jira lagu dhex milme lagu dhex qariyay isla toobka granite-ka ayaa la dhex geliyaa marka soo qofka hadiiba uu yani la socon mar qaar waxaa laga yaabaa granite-ki inuu ku fariisto waa jikadii ayuba qaar sayo fariisan kara so midkan kisto waxaa loo yeelay elevation yar oo top yar ahaan ah oo jikadii markaasi ka muuqata wixii appliance adjustments ahaanki loo isticmaalayna waa kuwaas halkan waa afar gees oo markaasi jika ah halkan ayaana ku karsanaysaa so digsiga flat ahaan ayuu meeshaasi u koraya shirkadda Beko meesha qaaca ka baxay extra storage halkaasina qaanada kale halkanna isla qaanada kale oo aad iyo aad u waaweyn ka faa'iideysanaysaa biyahaaga waa joogta waa ceel mar walbo isla meeshani iyadana waxaa sidoo kale looga sii faa'iideystay in extra storage gidigood aad ka hesho halkani very nice very beautiful so marka ka soo gudubto aad ka soo dhamaato dhanka jikada mainka ah jikadaasi marka ka imaato halkani waxaad ku leedahay jikadii wet dry jikadii wet kitchen midii qoyaanka mise dry kitchen ayaa kala jira dry kitchen iyo wet kitchen ayaa kala jira marka midani tee tahay soo sheega halkani waxaa ku diyaarsan fringerkaaga oo double door ah laba albaab leh aad ayuu weyn yahay inaba caadi maaha marka waa seamless qaanad ahaan lagu sameeyay meeshiisa halkaasi ayaadna ku leedahay fringerkaaga so intaana dhinacan aadin qolka shaqaalaha yaraa waxaan ka dhamaanaynaa jikada waxay halkan ku leedahay jikadeedii meeshii qaaca ka baxay extra storage sinkeedii biyaha oo joogto ah waa ceel biyaha mar walbo sidoo kale storage extra ah halkanna waxaad ku haysataa washing area oo aad ku mayranayso kuna dhaqayso washing machine-ki halkan ay kugu jiraa isagana marka waxaan kulli u jeedo waa qaanada halkaas aad ku geysanaysaa so marka gudaha u soo gasho meeshan waxaa qolka yar ee shaqaalaha masquusheedana halkan ay markaas ku diyaarsan yahay inaba caadi maaha very cozy very beautiful daaqad yar oo glass ah ay halkaas ugu diyaarsan curtain rodski halkaasi waa loo geliyay already so jikadani marka aad yani ku jirto waxa access u leedahay albaab kale oo ka bixi karto una bixi karto banaanka halkan ayuu albaabku leeyahay waa ka bixi kartaa oo banaanka ayaa halkan ka access garan kartaa garden yar ayaa banaankaasi ku diyaarsan inaba caadi maaha very beautiful ground floor waan ka dhamaanay waana ujeedaa habka uu markaasi u nidaamsan yahay una design garaysan yahay marka albaabada hadii aad u jeedo dabcan waa glass halkan waxa ku haysataa meel study room ahman ka dhigan karto wax kale u adeegsan karto very nice very cozy very beautiful marka guriga aan ku sheegayo waa ka guriga waa ka ujeeda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waa tawan estate ahaan gated community marka design-ka xaafadani hadda sidani ay u taalaa guriga aan ku dhex jirno oo aan hadda sharaxaynana design-kiisa waa kaasi exterior-ga banaanka hadii ay noqoto marka xaafadda sidan ayay u nidaamsan tahay una dhisan tahay una hagaagsan tahay marka ilaa iyo 10 units ayaa halkan ku jirta hadda hal unit bis ayaa baharay marka sidaasi ayaad ogaanaysaa xaafadda iyo wadadeedii waa kaas gurigani waxa uu ka kooban yahay 3 biyana camal waana 4 qol iyo fadhigii iyo marka qolka shaqaalaha so stairs ka markaad soo korto waxa ka bilaawaysaa qolasha koowaad halkani waxa kugu diyaarsan qolkani oo aad u qurux badan waxa uu leeyahay balcony
balkonigani ayuu leeyahay halkani ayaad jabiga ku bedelinaysaa ku qaadanaysaa leerta kuna mushaaxaysaa kana daawanaysaa caasimadda Nairobi waa marka qolkani koowaad waxa uu leeyahay balkonigani oo aad ka daawanayso xaafadda iyo estate-ka markaasi sidoo kalena kana qaadanayso leerta iyo dabeesha so gurigani waxa uu leeyahay gypsum inaba caadi ahaan aad u qurux badan waxa sidoo kale seamless laga dhigay gypsum kala dhaxgalay lagu dhax qariyay curtain rodski iyo qashinkaas meesha la gelin lahaa kadib daahaga wuxuu ku soo baxayaa si nidaamsan oo cajab ah daaqadaha waa glass waana sliding inaba caadi maaha so waxa uu leeyahay space kani dhami aad u jeedo very nice gypsum kiisa iyo downlight taska haddii aan ka gudubno qolka kale ee xiga asagana inaba caadi maaha waxa uu leeyahay musquushiisa ayuu leeyahay very nice musquushiisa ayuu halkani ku leeyahay inaba caadi maaha ma laga sheekeyn karo waana very spacious qolkani waa qolka koowaad ee jiifka musquushiisa guduhu ku leeyahay albaabadiisa white gypsum kiisa downlight haddii laho nalka chandelier ahaanka ah qolka kale ee xiga isagana waa master bedroom aad u weyn aad u qurux badan qaanadihiisa isagana waa uu leeyahay halkani ayaa storage ku samaysanaysaa dharka haddii ay noqoto alaabta markaasi laga sameeyey alwaaxa waa very beautiful very nice gypsum kiisa daaqadihiisa oo glass ah socketyada inaba caadi maaha dhinac walbo socket ayuu ku leeyahay waxa uu sidoo kale leeyahay balcony yar oo aan inaba caadi ahayn halkana waxa uu ku leeyahay musquul aad iyo aad u weyn aan laga sheekeyn karin very cozy very beautiful marka first floor intaas ayaa kugu taala second floor ayaa aadaysaa oo nafaaskiisa soo cabir ahaan markii la dhaho baaxad weyn leh aad u qurux badan wall to wall waxa waaye glass window oo markaasi transparent ah daahasha gudaha ayaa lagu dhex qariyay gypsumka waxa uu leeyahay armaajadiisa ma laga sheekeyn karo sidoo kale waxa uu leeyahay musquushiisa sidoo kale waxa uu leeyahay musquushiisa oo aad weyn iyadana inaba caadi ahayn marka qolkani waa qolka la sagana steps ka u dambe intaadan korin rooftopka meesha lagu warinayo dharka halkani chandelier inaba caadi ahayn ayaa markaasi lagu sharaxay
nalkani habeenkii haddii la daaro wallaahi cajab ay ku soo baxaya very beautiful ma laga sheekayn karo kadib luuqan yar markaas ka dhaafto halkani waxaa kuu diyaarsan meeshani waa korkani waxaa loogu talagalay inaad dharkaada ku warato sidoo kale aad waqti isaga qaadato haddii aad doonayso jabi aad isaga nasato aad ay weyn tahay waa 400 oo fit andhe 4000 oo fit nafaaskaasi oo dhami ayaad leedahay xaafadana de waa ujeedaa dhirteeda geedaha jawiga siday u degan tahay neecawda iyo cadceeda iyo jawiga markaasi xaafadani leedahay wax laga sheekayn karo ma aha soo halkan ayaa waxaa ka daawanaysaa xaafadda waxaana ku qaadanaysaa waqti sidoo kale haddii aad doorbidana waxaad ku waranaysaa dharkaaga ma laga sheekayn karo nafaaskiisa baaxad ahaan markii la dhaho balac ahaan markii la dhaho dheerar ahaan markii la dhaho iyadana ma laga sheekayn karo aad ay u weyn tahay so designka aad arkaysee markaasi sawirna exactly sidii ayuu ku soo baxay gurigii habka uu yahayna waa ujeedaa aad ayuu markaasi u weyn yahay nafaaskani so gurigan waxaa lagu rabaa 70 milyan oo lacag Kenya ah baliciisa cabir ahaan markii la dhaho waa 4000 oo fiitaan markii la dhaho sidoo kale waxa uu leeyahay qolol kale oo aad u tiro badan oo markaasi jaanis ahaan oo faa'iideysan karto waxa doonto study roomkii oo balaadaasay qol kale oo fadhi ahaan ayuu hadana ku leeyahay first floor waa arkayse korkanna waa ujeeda nafaaskan aan inaba caadi ahaan aad ka weyn marka haddii aad doonayso insha Allah gurigani waxaad nagala soo xiriirtaa lambarka ah ewer 7 hal 48 hal 58 ayaad naga soo wacaysaa insha Allah nagala soo xiriiraysaa marka gurigani oo dhameystiran muuqaalkan waxaa ka daawanaysaan barteena YouTube-ka Malab Malab Misoo Farm TV ilaa iyo kulanti dambe ciao ma salaam